Dhulka Soomaaliya waxa uu ahaa mid dadku degan yihiin in ka badan 10 sano ciise hortii, waqtigaasi oo dadku intooda u badan ahaayeen doorgaleen dhaqda beeraha iyo xoolaha. Sidaasi ay tahay, waxaa jirtay xadaarad tartiib isu soo taraysay, oo waxaa la sheegay in dadkaasi ay lahaayeen xidhiidhyo ganacsi, xoolaha iyo dhirta ah, iyo weliba cilaaqaad xog dheer oo ku saleysan maamul iyo horumar. Si kastaba ha ahaatee, xadaaradii ugu horreysay waxaa ka mid ah farshaxanka, beeraha, xoolaha dhaqashada, iyo maamul yar oo ku saleysan beelo ama deegaan. Deegaanka Laasgeel, oo ah meel u dhow magaalada Hargeysa, waqooyi galbeed ee Soomaaliya, waxa uu ka mid yahay taariikhda qadiimiga ah, waxaana lagu qiyaasay in uu farshaxankaasi jiro ilaa 5,000 oo sano.